السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالي هاي سولمنا ان فيديو حرب مانت إنا سوق ليو ان شقوين إيو حاس سمر جوبس إيو حاس كسابسن لكن وكمار مواي إن سوق لي فيديو أو أرمها بالشدة إلا إيا هدا صدح لبها بين يمالن بيشا كذا مريسا لكن إلا إيا هدا ولي مسكح ريدي كوين تحي صومالي intaasoo aan arkay intaasoo la qaxay rafaad iyo hoog iyo sila inaanay waliba Soomaali garowsan doorasho waxay ka dhacday baa la yiri oo ka dhici lahayd baa la yiri district 10 in Minneapolis anu district 10 Minneapolis ma aqaan Mareykanna ma deganin waligeena ma degin laakiin aan gasin inay tahay xaafad waa adoo boondeer iyo waabri iyo u tartamaya doorashada marka waxay isu bedeshay qabyaalad whatever the reasons يعني ويل كان أو سوشيال Soomaaliga wada uu bahalkiya isaga waa dimuqraadic san jeclahay oo lagu yiri waa isna waa dimuqraadic gabadha loolamaysan waa dimuqraadic markuu isagu israareebo jamhuuriga la aada in lama dhacda marka dimuqraadiga israareebkiisiba waaye waxaan habase ahaatee ama Soomaalidu ha u vote gareyso ama yaanay u vote gareyn that's another matter waxaan aan la yaabanahay wali iga dhaadhici la waxa waaye dadka qabaa'ilka ka dhigaya wax walba iyo kuwa waliba waxa igu daran Afrika iyo Yurub jooga oo Mareykan aan ka shaqo ku lahayn oo Mareykan aan deganeyn oo xaal aan ka warqabin haddana qabyaalada isweydaarsanaya oo qabyaalada ku loolamaya ana reer hebel iyo ana reer hebel what is wrong with you lot soddonka sano la soo dhaafay aan burburno hoogno baanay facaya ka harnay hasn't written in history يعني من قلبتي إنه وحبكم أنا يريبين صدقاً ما هنيك واحد جب كاسو كذا كاسو مري أو ستيل أو وحبك كبرن أو ستيل كبرن وحن أنا يبقى دنت يدو كجرين قرن كيجو بربرية ضمن ماذا يدي بربرية لكن كيجي بربرية لو قد يدي بس بربرية صح وعروض يدي كو صومالي جوجا حتى إنجليز بيدور بدا يعني مرة بام في صومالي إنه كو هذلا يعني دون تنكفر فرناي انت كوما فيلا يو ستيل باهبه ستيل وحو اوبسي قبطاميه رير هبل سؤال بان ويدينا يا مرك وافهمي رير هبل وكوغو وين سؤاشا ان قبا مرك waxay tahay qofka qabiilka u dhintay oo ninka qabiilka difaacaya weerar ku jiray oo intaas oo sano aan qabaa'il isku dilayni intii hore u dhimatay caruurtooda ma laga warqabaa qabiilku ma ka warqabaa مئي شيء كرتان قلو أما قبيل إسهل قامي ويروحان ما أنتو حقو أرورينينا أن قاران أرورينينا ويلشي كوني سقال بقوليو هدادودي ملهبلاي الودي لي عرور طودي ولي ما هيسا مال لقلي هاي نينكن ويل كان مقرن هيسا الله ويل كان والله أبيه با دقالمي جريو هليي هايو تلك u dagaalamay wiilkan waxaan siinayna scholarship ama gabadhan aan shaqo siinayna oo lagu siiyay aabahood ba qabiil u dagaalamay wali ma haysa gabar qabaa'il dumaalay oo la leeyahay wiilkii qabay baa ka dhintay waa dumaalayna si aan caruurta ula korino wali ma haysa ma jiro you know why qabiilku wuxuu ku jecel yahay inta tabarta leedahay inta xoogan tahay inta shaqaysanayso inta qurxoon tahay inta lacag haysato قبيل نين فالحن أو فقري يجعل مجرو دا فالحن تو فقر تاي وادي إلها قبيل شقة كمدي وما بالحساب سميت بملا فقر الحساب سنة يعني ما أركن نين كالعكت لهم بالحساب يعني سياسي قبيل كاستعماله يعني وانين ربح إنه وكسب قبيل درتي ما فهمين مركه وحق وهيا أو أنت سو قبيلة ده إلا يا مريكان كإنك يعني إنك استوى أنا هذا وحن بأركاي ودت Soomaali وله مريكان كان أقولين أيو أفريقيا جوجو غاركود يوروب جوجان ولا مريكان essentially وتولير ولا عاد حيستها because عقلي تلكين بامش الله تجني يا قبيل بانو ماشى الله تجني جيلي بوليد هاي مرنا الله سيد عجري مرنا الله سود أحسن جري شاكذا ذي بان ماشى اللي جوجنا بروفيسور كيجي حتى مكوينه بجيل بوليد جيل بوليد إنه كشك أنتو مال صفر است ميكروفون قاتو هيربل با waxaa naga dhacay هيربل baan soo dhacnay inuu ka sheekay professor kana kama weyna so intellectual حتى lama qoran karo Soomaali hal nin oo intellectual ma qabto hal nin oo yaani ay ku baxsatana ma qabto at this point because hadaan qabno waa isqaaban lahayn qabyaaladu waxay ku fiican tahay markaan isku garanayno
as a postcode markaan u isticmaalayno warqad baa lagu soo dhiibaya waxaa lagu leeyahay warqadan qaad magaalo heblaaye gee gabar heblaaye la yiraahdo reer hebel u gee as a postcode soo qabiilku intaas ku fiican yahay qabiilku wuxuu ku fiican yahay markaad caa'ilada iyo ehelka iyo qaraabada aad xiriirinayso qabiilka laakiin markaad nin ku jeclaysanayso ninna ku riixayso nin ku dilayso ninna ku soo dhawaysanayso tayo ma yeesho marka dadkan waaweyn anigu dadka ilmaha yaryar waa waxba kama sheegi karo waa iska caruur dadkan waaweyn oo ilmaha yaryar dhaqan xumada iyo fidnada iyo abaabulka qabaa'il u horseedaya war ilaahay ka cabsada oo isku xishooda oo wax isku fala dad nolosha ka dhacay baad noqoteen nolosha ka dhacdaba war dib isu qabta daadaba qabasho leedihiin weeye haddii kalena hore u sii socdo haadaamaha ka dhaca wax kaloo leedin oran kara male waxaan jeclaan lahaa aan dhalinyarada Soomaaliyeed aan mid iyo laba iraahdo waa mid eedooyino noloshiini waa idin hortaala dad hadda nolosha bilaabayaa tihiin oo yacni intaasoo sanaa idin harsan hadduu ilaahay naf idinku simo ya ku fakera sidaad wax u baran lahaydeen ku fakera sidaad u horumari lahaydeen ku fakera sidaad saliim u ahaan lahaydeen dad nadiif ah ya si idin fahamsiiyo waxaan ka hadlayo waxaan isticmaalayaa erey bixin ilana qaldan laakiin ku yacni aad fahmi karaysaan landheeraha laguu sheegayo mataqaanaa landheeraha laguu sheegayo waa qofka dantiisa yaqaana naftiisa maareeya afkiisa iyo adinkiisa laga nabad galo islaamna ah qofka muslimka saalixa ah ee afkiisa iyo adinkiisa laga nabad galo dantiisana yaqaana qofkaasaa landheera landheera waa qofka cilmiga uu bartay dadka uga faa'iideeya cilmiga ama science ha noqdo ama maadi kale ha noqdo ama diin ha noqdo cilmigu ama maxaa la yiraahdaa maxaa la dhahaa ha noqdo shaqo aad taqaanid sida inaad guri dhisidoo kale inaad kabto shidoo kale inaad bir garaacdidoo kale waa cilmi birta la garaacayo blacksmithka adduun weynaha waa dadka ugu cilmiga wanaagsan oo ugu dhaqaalaha fiican ma garanaysaa marka cilmiga aaleeda markaad dadka uga faa'iidaysid markaasaa nasabta waadan cilmiga la dhiman eedooyina waxaa nasab tihiin markii waddankiina idinka inta la idinku yimaado idinka la idin hoos fadhiyo markaad idinku waddan kale hoos fadhidaan oo dad kale hoos fadhidaan oo idinka aad tuugsanaysaa markii qofna uma rajaynayo inuu tuugsado tuugsiga walaa muslim walaa gaal wax wanaagsan maaha laakiin waxay ku fiican tahay haddaanba la hurayn in idinka la idin hoos yimaado inaad idinka dad kale aad hoos fadhidaan haddaa qabiilka sida ay waalidkiin iyo annaga iyo dadka kale ay ku wadaan aad ku socotaanna weligiin ka bixi maysaan inaad tuugsataan weligiin ka bixi maysaan abaaraha soo laalaabanaya weligiin ka bixi maysaan inaad tviyada aad ka dhex muuqataan cunug yar oo Soomaaliya oo daqsi ku degayo la leeyahay fadlan $3 si bishi waa Soomaali baahan ha ku daawanin abaaraha ku habsaday saasaan ka nahay adduunka ilmaha iyaga loo tuugsaday adduunka landheer ku leeyahay shuu landheer maxaad ku tahay marka carruurtaada iyo xaaskaaga iyo dhashaada loo tuugsanayo yaa ku yiri landheeraad marka fadlan qabyaaladan tirada badan ee aan la fadhino social media waxa ugu si ayaanka daran waxay tahay oo aynan fahamsanayn inaan dadyooga qalaad barayno sida nolol dhaqmi lahaa waxaad baraysaa ummadaha kale in haddii aad rabtid inaad Soomaalida kala jabsato oo kala dirsato aad qabiil u raacdid oo tiraadi reer hebel wariyaar reer hebel hadday ka socotaa TikTok dadan aqoon oo qoliyo kala Chinese iyo European iyo Mareykan ah oo intay soo galaan TikTok heesa qabaliya qaadaya oo dhahaya aan reer hebel baan ahay reer hebel ha noolaado way fahmeen way fahamsan yihiin waxaan oo kala aad sii wadaan iyo doorashooyinkan aad isku qabqabsanaysaan xataa dadka la loolamaysaan beritoole ayaad baraysaan in okay codka Soomaalida seen ku helaa aan kala jabsado Soomaalida waxay noqonaysaa hadhow inaan la isu codayn oo Soomaalida ay kala cararto waa kana faa'iido maxaad ka dhaxashay marka qabiilka
qabiilkii adinka ay soo adeegsanayeen markii inta la idin barto la idin daraasaado idinkii dib la idinku soo celiyo idinkii la idin isticmaalo maxaad faa'iido maxaa ka soo galay adinku waa inaad wax faa'iidid soma ilaa ay hadda maxaad faa'iido marka nothing ceebahaaga iyo calalahaaga wasaqdaabaa dariiqada ku dhaqaysaa dumarkaagii iyo carruurtaadina waa wada qaawan yihiin waa la tuugsanayaa fadlan $3 sii waa Soomaali wallahi wax kale inaanay soo gelin haddaad daawato islaamiga abiilka noo tuugsada waxaan sawiradeenu ku jiraan UN-ka qaybihiisa kala duwan oo nagu tuugsada British Red Cross ka nagu tuugsada Norwegian Red Cross ka nagu tuugsada wadamo badan baa Red Cross kooda nagu tuugsada Soomaali baan caawinaynaa $3 na sii markaysa cunuga yare baahida hayso isagoo ilmo yar oo Soomaali oo miisaan la saaray hooyadu sido ilmo yar oo Soomaali oo hooyadu siday leedahay 9 maalmood wax ma cunin ninka dadkiisii sida ay yihiin meel intuu istaagale landheera ahay ka war warhaada ilaa ceeb looma dhinto qabri ceebeed ilaa ay hadda weli lama hayo go'sadii lahayn lahaa Soomaali miiran baa la arki lahaa qabrigiisu la leeyahay ninka ceeb uu dhinto ama naagta ceeb ay u dhimatay dumarkaaba ka daran raggii dumarkiiba 150 ku dhaafay rag baa qabyaalad lagu caayi jiray oo dhigi jiray qabiil bay bisinka iyo yaasinka dumarkiiba xis ku dhaafay waxaan qabyaalad iyo qoqob iyo inaan dadkii kala soocno oon kala miirno oon qoloqolayna ahayn maba ka shaqaynaba hooyooyinka qabyaaladana ilaahay laga cabsado hadday suuragal tahayna isku daya inaad bahasha yareysaan jooji maba leedin oran karaba waa talax tagteen xoogaa yareeya dadkan kale aad baraysaana ka daaya bahasha annaga nagu ekaato dadka kale hadday bartaan u baran maayaan reer hebel baa wanaagsan iyo reer hebel baa wanaagsan iyo reer hebel they couldn't care less who you are hadday bartaan waxay u baranayaan siday adigu ku kala dhantaali lahaayeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.